Kadib duqeymo maalmihii la soo dhaafay laga fuliyay duleedka degmada Matabaan ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidanka daraawiishta gobolka Hiiraan waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Bukure oo dhaca degmooyinka Matabaan iyo Maxaas. Ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya daraawiishta dowlad goboleedka Hirshabelle iyo sidoo kale ciidamada macuusleyda ee ka howlgala deegaanka Maxaas ayaa waxay fuliyeen in halkaasi ay ku burburiyeen fariisin Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Bukure. Gudoomiyaha degmada Matabaan Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeeye ayaa ka warbixiyay markii uu soo idlaaday howlgalka qorsheysan ee lagu qaaday fariisinta Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi Bukure. Waxaan rabnaa halkan inaan faahfaahin kooban ka bixino dagaal maantay aroornimadii ku dhex maray deegaanka Bukure oo hoostaga degmada Maxaas ku dhex maray ciidamada dib u xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan iyo ciidamada dowladda federaalka qaybta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Hirshabelle oo iskaashanaya howlgal ay fuliyeen oo ay ka fuliyeen deegaanka Bukure ee hoostaga degmada Maxaas ayaan faahfaahin ka bixinaynaa insha Allah tacaala sida wax u dhaceen khasaaruhu sida uu yahay ayaan faahfaahin doonaa. Runtii meeshaas waxaa ka dhacday weerarkii iyo maaragtay gaadmadii iyo xoreyntii meeshaas ay ugu talagaleen ciidamada dib u xoreynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Hirshabelle oo iskaashanaya howlgalka sidii loogu talagalay ayuu u fulay sidii loo qorsheeyay ayuu u dhacay guushii aan maaragtay ka rajaynayno ka filaynana waa laga gaaray insha Allah tacaala. Waxaan rajaynaynaa meel walba oo ay ku sugan yihiin in sidaas iyo si la mid ah in looga howlgeli doono loogana sifayn doono. runtii khasaarahooda aad ayuu u badnaay maantay khasaaro baaxad badan oo dhimasho gaarsiisan ilaa 30 kor u dhaafayso iyo dhaawac ilaa 70 ah ayaa meeshaas khasaaro ayaa ka soo gaaray. meeshiina waa lagu soo afjaray, xeradiina waa la soo maaragtay la soo gabagabeeyay hawshii ay ka wadeen iyo mashruuc ay ka socday intaba deegaanka looga dhibaataynayo. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa u mahad celiyay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidanka daraawiishta gobolka Hiiraan oo hogaaminayay taliyaha ciidanka daraawiishta gobolka Hiiraan Axmed Dirir, wuxuuna sheegay in dadka deegaanka Bukure looga baahan yahay ka qayb qaadashada soo afjaridda howlgallada looga hortagayo ururka argagixisada Al-shabaab. ayagu inta dad muslima dhibaateeyaan ayay ilaahay marqaati beena u qabsadaan, mahad beenana u mahad celiyaan oo aan run ahayn. annagu mahad celin run ahaan alla u mahad celinaynaa. waxaanu aaminsannahay culimadana la weydii karaa in naftooda iyo dhiiggooda iyo nacfigooda uga bannaan yahay. sababtu ay tahay waa dilaha aqoonta, waa dilaha garashada, waa dilaha diinta, waa dilaha tacliinta. wax ay ku wanaagsan yihiin marka meel walba laga istaago ma jirto. macluul baa loogu dhintaa deegaamada ay ku nool yihiin. anugu faahfaahin badan ma gelayo. sida uu sheegay gudoomiyaha degmada ayaa warbixintu ku kooban tahay. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska Hirshabelle ama daraawiishta Hirshabelle oo ciidamada Hirshabelle ka mid ah iyo ciidanka Soomaalidu ay u taqaan macuusleyda. macuusley eray siyaasi maaha, waa eray raqiisa. ciidamada dib u xoreynta deegaanka Hiiraan baa la yiraahdaa, magacaasay leeyihiin. saddexdaa howlgal ciidana meesha ka howlgashay. booliiska federaalkana waa nagula jira howlgalka oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Bashiir Cabdi Xiire, warbaahinta qaranka.